shirkii saddexaad uu cilaamiyo madaxweynaha muddo-xileedkiisa u dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa fashilmay ka gadaal markii madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay diideen ka soo qaybgalka kulankaasi. Shirkan ayuu Farmaajo u bedelay xaflad lagu saxiixayo heshiiskii laga gaaray khilaafkii doorasho ee ay diyaariyeen guddiga farsamada kaas oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Balse arrintaasi ayaa waxaa ka hor yimid maamulada Jubbaland iyo Puntland oo si cad u sheegay in uusan sharciyad u lahayn Farmaajo inuu shir gudoomiyo. Dhinaca kale waxaa Muqdisho ka maqan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug kuwaas oo Turkiga u jooga safar shaqo, waxaana Muqdisho ku sugan oo kaliya madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen. Arrintan ayaa ka dhigan in go'doon siyaasadeed la geliyay madaxweynaha muddo-xileedkiisa u dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale waxaa maalinta Sabtida lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn kuwaas oo loogu soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale waxaa galabta Muqdisho ka furmay kulan kaas oo u dhexeeya midowga murashaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Kulankan ayaa ahaa kii saddexaad oo si foolka fool ay isku hor yimaadaan ra'iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta. Laba kulan oo horey u dhaxmaray ra'iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta ayaa labaduba waxay noqdeen kuwo miro dhala, isla markaana labada dhinac ay isku afgarteen in wax waliba oo shirkaasi lagu soo qaadayna ay wada saxiixeen. Shirkan galabta ka furmay ilaa caawa soconaya ayaa la filayaa in laga soo saaro war murtiyeed kaas oo shacabkana ay ku dhowr sugayaan waxa ka soo bixi kara. Balse saacadihii ugu dambeeyay intuusan furmin shirkaasi ayaa waxaa laga muujiyay walaac kaas oo ku aadan in dib u dhac uu ku yimaado ka gadaal markii faragelin xoogan ay ku soo samaysay Villa Soomaaliya taas oo doonaysay in la baajiyo. Balse ra'iisul wasaaraha ayaa ku adkaysay in kulankaasi uu furmayo isla markaana ay ishorfariisan doonaan midowga murashaxiinta. Warar hoose aan helnay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in kulan dambe oo afaraad ra'iisul wasaaraha dalka iyo saamileyda siyaasadeed gaar ahaan midowga murashaxiinta ay ku yeelan doonaan caasimadda dalka. Farmaajo iminka ku sugan Villa Soomaaliya muddo-xileedkiisuna uu ku ekaa 8 February bishii aan ka soo gudubnay ayaa iminka waxa uu ku jiraa go'doon siyaasadeed kadib markii saaxiibadiisa qaar ka mid ah ay xiriirkii u jareen isla markaana iminka ku sugan yahay oo kaliya xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ayaa isu dayay in gebi ahaanba uu laalo heshiiskii ay gaareen midowga murashaxiinta iyo ra'iisul wasaare Robert taas oo ku aadan in dibadbaxyada ay dhacaan. Balse kadib markii ra'iisul wasaaraha uu sheegay in dibadbaxaasi uu dhici doono ayaa haddana waxaa xukuumadda Soomaaliya ay shaacisay maalinta Sabtida loo ogolaaday siyaasiyiinta gaar ahaan saamileyda xarunta taalada daljirka Dahsoon degmada Boondheer ee gobolka Banaadir.